wasaaradda amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan oo gordhaweyday warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladaha ku soo kordhay maamulkaasi gaar ahaan dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Cabdisamad Maxamed Galan ayaa marka hore ku dhawaaqay xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan gasha magaalada Boosaaso si loo xoojiyo xabadda ka dhacaysa magaaladaasi. wasiirka amniga Puntland ayaa sidoo kale xusay in Puntland ay haatan diyaar u tahay inay wada hadal la gasho hoggaanka BSF isla markaana si deganaan lagu dhameeyo xiisada haatan taagan. sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in xiriir ay la soo sameeyeen dad kala duwan oo isugu jira culimo iyo ismo ay ka codsadeen in xabadda la joojiyo. wuxuuna dhanka kale wasiirka sheegay in wixii mas'uuliyad ahaa gaar ahaan dhibaatadii gaartay shacabka uu qaadayo agaasimaha xilka laga qaaday ee BSF Maxamuud Cismaan Diyaano. bismillaah alxamdulillaah maantay oo ah maalin Arbaca ah 22ka bisha Diseembar 2021 waxaan ku sugannahay magaalada Boosaaso. marka ugu horeysa waxaan uga tacsiyeynayaa shacab weynaha ay dhibaatadu ka soo gaartay magaalada Boosaaso. rasaastii faraha badnayd ee hoobiyaha iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan ahayd oo ay ridayeen nimanka shuftada ah oo fallaagada ah oo la socda agaasimihii hore ee ciidanka BSF ee xilka laga qaaday. dhibaatada ay shacabka u geysteen oo keenay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dad masaakiin ah oo guryahoodii jooga iyo qaybtood xitaa masaajidadii dadkii ku tukanayay ay ku dhibaateeyeen uga tacsiyeynayna shacabka. inta ku dhimatay waxaanu leenahay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantayna waxaanu leenahay Allah u boogadhayo. saa la socotaanba 24kii bishii hore ee November waxaa soo baxday digrii madaxweyne oo xilka lagaga qaaday agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta Maxamuud Cismaan Cabdullaahi iyadoo loo magacaabay agaasimo cusub Generaal Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr. waxaa timi in uu u hoggaansami waayey in uu xilka wareejiyo agaasimihii hore Maxamuud. markay arrintaasi dhacdayna ciidamadii BSF-ta ahaa oo ahaa ciidamo diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dawladda waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka BSF-ta ah iyo agaasimaha cusub Generaal Maxamed Amiin. waxa uu bilaabay markaa agaasimihii hore markay ciidankii ka yimaadeen inuu urursado maleeshiyaad qowlaysata ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo. ilaa iyo taariikhdaas waxaanu ku sugannahay magaalada Boosaaso. waxaanu u nimi inaannu arrintaas si silmi ah ku dhammayno oo xilkaa aanu ku kala wareejinno. laakiin waxa ayaan darro ah in uu nagu gacan seeray agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta xilka laga qaaday iyo inta la aragti ah. haddana saasoy tahay turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso aanu ugu turayno maxaa yeelay waa shacabka iyagii mas'uuliyaddu naga saarayd aanu u dhaarannay. arrinta annagoo xeerinayna waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooyee xabad kale. waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo culimaauddiin nabadoonno ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay. shalayna waa u sheegnay, maantay saakayna waagu markuu barayo xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qowlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay. waxaanu nidhi annagu sidii baanu diyaar u nahay gariigil u nahay nimankaas qowlaysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dawladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo. annagu gariigil baanu idin nahay anytime aan noo timaadaana diyaar baanu idin nahay. go'aankan ayaa noqday mid lama filaan ah maadaama horey maamulka Siciid Dani uu ugu goodiyay inaysan wax jiljaleeca u muujin doonin agaasimaha hay'adda BSF iyo ciidan ka taabacsan. waxayna taas sababtay dagaal ka qarxay magaalada Boosaaso. dagaalka oo galay maalintii labaad ayaa dhaliyay khasaare xoog leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac, burbur iyo barakac hor leh oo ay sameeyeen dadka deegaanka. Cabdixafiid Nuur, SBTV, Muqdisho.